السلام عليكم ورحمة الله سوري وهذا أصحابته كسوري وهذا لينكم waxaan idinka raali gelinayaa muddadii ku dhaweyd bishaya xoogaa ahayd ee aan waxba soo gelin channelka ama casharadii naga kala go'een haddii Allah uu daleedmo casharadii hore ee HTML-ka halkaas ayaan ku joojinanaa caawa waxaan bilaabi doonaa course-ka qaybtiisii labaad oo ah CSS marka hore waataynu soo sheegnay inaan course-ka laba u qaybin doono waa basic web development laakiin laba qaybood baynu qaybinay qaybta hore oo ahayd HTML-ka oo wuxuu qabtaa inuu soo sharaxnay iyo qaybta dambe ee ahayd CSS-ka hadda waxaan bilaabi doonaa haddii la idmo qaybtii dambe ee CSS-ka ahayd ama part 2-gii course-ka marka haddii la idmo caawa waxaan qaadan doonaa xoogaa introduction ah waxyaabahan ku qaadan doonaa waxaa ka mid ah saddexdan baan ku qaadan doonaa waa maxay u taagan tahay horta CSS waa maqnaa inta waxa loo soo gaabiyay inuu ogaano sidoo kale tabeska uu leeyahay CSS-ku sidoo kale waxaan ogaan doonaa syntax-ga iyo habka loo qoro CSS-ka habka guud ahaan syntax-giisa guud ayaan ogaan doonaa haddaynu ka bilowno macnaha ama waxa loo soo gaabiyay CSS waxa loo soo gaabiyay stand for waxay u taagan tahay CSS cascading style sheet waa cascading style sheet bay u taagan tahay sidoo hore cascading bay u taagan tahay esta horena waxay u taagan tahay style esta kalena waxay u taagan tahay sheet muxuu qabtaa hadaba CSS describes wax lagu qeexaa ama wuxuu cadeeyaa how HTML elements kii aynu soo sheegnay aynu soo qeexnay aynu soo kala saaray aynu ka soo hadalnay waxaan filayaa cashar dhan baynu ka diyaarinay HTML element waxa la dhaho iyo wuxuu yahay HTML elements kaas aynu soo sheegnay are to be displayed on screen wuxuu kaliya uu sheegaya ama qeexaya habkay elementyada HTML-ka ah uga soo bixi lahaayeen shaashadaada tusaale ahaan HTML element haddaynu halkaa ku qoro waxaa noqon karaa b Somali haddaan ku qoro paragraph oo kale intaas waxay noqon kartaa HTML elements kaasi seebuu browser-kaaga uga soo baxaya marka website-ka marka la soo kiciyo seebuu u ekaanaya inaad qurxisid inaad hagaajisid midba inaad colorkiisa bedeshid Somali ba paragraph-ka ku dhex jira hadda bid waa Somali qoraal ku dhex jira qoraalkaas oo kale inaad fartiisa bedeshid inaad qurxisid aad ku macnaha aad ku dartid colorka inaad ka bedeshid background-ka inaad ka bedeshid waxa soo dhan ku qabanaya marka HTML elements-ka say u ekaanaya marka in screen-ka browser-ka ka soo baxayaan kaliya ayuu soo qeexaa CSS-ku ama uu qurxiyaa markaynu bilaabanay course-kana waan idin tusay waxyaabaha ay kala qabtaan waxaanu soo qaadanay sawirro oo matalanba HTML-ku inuu qabto skeleton-ka in lagu dhiso ama lafaha in lagu dhiso website-ka qalfooftiisa CSS-ku uu noqon doono qurxintii sida matalanba qofka lafihiisa oo kale qofku markuu qalfoofta kaliya yahay ee lafaha kaliya yahay baynu HTML tusaale uga soo qaadanay tusaale HTML kale waa qof qalfoof oo kale CSS-ka marka lagu darana waa jirkii iyo hilibkii iyo dharkii iyo waxaas qurxinay oo dhan hadaba CSS-ku wuxuu leeyahay tabes kala duwan ama qaybo kala duwan waxa loo qaybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa oo kala faa'iido badan lana kala isticmaal badan yahay qaybta koowaad waxa la dhahaa inline CSS qaybta labaad waxa la dhahaa internal CSS qaybta ugu dambaysa waxa la dhahaa external CSS ku waa the best waana ka ugu pluralsan ee la isticmaalay inta badan mid walbana waan tijaabin doonaa insha Allah laakiin labadan hore waxaan idin tusi doonaa ahaan example baan idin ka tusi doonaa laakiin keen isticmaali doonaa waa ka hoose haddaynu eegno syntax-kiisa ama habka loo qoro qaabka loo qoro waa sidan marka ugu horeysa waxa la yaqaan selector ka hadda tusaale maxaa loo soo qaatay h1 oo kale h1 soo tag ma ahayn h1 haddaan qoro oo tag furan ku jirta dabeetana aan matalan geliyo Somali oo kale haddana aan h1 tii xiro hore baynu soo aragnay sida loo qoro intaas tag la isku dhataa element intaas la isku dhaha marka h2 baan leeyahay sorry h1 ma h2-gii baad soo qaadanaysaa markaad CSS ka sameynaysid selector baa la dhahaa intana waxaa la isku dhahaa declaration area inta bracket-ka laga bilaabo ilaa bracket-ka kale waxaa la isku dhahaa
declaration area ayaa sii kala baxa oo qaybtan hore ee matalanba colorka ah hadda waxaa la rabaa h2 ciwaan h2 ku dhex jira ama ciwaan size-kiisu uu yahay h2 in colorkiisa la bedelo fartiisana la bedelo marka colorkiisa color badaasaa h2 badaasaa bracket bad fursaa color badaasaa colorka waxaa la dhahaa property baa la dhahaa h2 baa iska leh oo propertyada h2 bay ka mid yihiin dabeetana waxaad daasaa column dabeetana waxaad sheegaysaa colorka aad siinaysid green by value baa kaana la dhahaa kana waxaa la dhahaa property kana waxaa la dhahaa value markaasoo kale hadeer qoraalkan qofku marka sidan oo kale waxaa la isticmaalay inline css baa la isticmaalay haddii simicol inta la dhaho lagu sii daba xiro oo hal bracket la wada geliyo waxaa la isticmaalay inline css sidoo kale waxaad dhihi simicol baad dahaysaa haddana waxaad dahaysaa font size baad dahaysaa font size markaad tiraahdo column baad dahaysaa 32 waa size-ka uu ahaanayo maxaa ahaanaya size-ka waxaa ahaanaya ciwaankaaga intuu size-ka noqdo pixel bxtana pixel baa loo soo gaabiyay marka haddii lahayd mo hadda de waa sawir uun laakiin waxaan u arki doonaa by practical bal haddaynu caawa in yar oo practical iska sii tusno caawan ka xumahay waxaan iigu jirin sublime text-gigi ayaan iigu jirin laakiin notepad-kaas ayaan iska isticmaalana waxaan dhahayaa matalaba html xaggana waan tegayaa html-kii baan xidhayaa sublime text-gii baan iigu jirin xaggana waxaan dhahayaa head okay halkaasaa la geliyaa css-ka kobtaas headka dhexdiisa ayaa waxaa lagu qoraa css-ka tusaale ahaan waxaan tijaabinaynaa inline css oo kale halkan oo kale waxaad dhahaysaa markaa style furasa tag la yiraahdo style waad xirasaa haddana xagna tegaysaa halkanaad ka xiraysaa hadaasaa style okay xaggan hoos oo kale waxaad gelinaysaa body buriga dhexdiisa matalan waxaan ku qorayaa ciwaan la yiraahdo h2 ah si aynu raacno sawirkeeni oo kale waxaan ku qorayaa Soomaaliya h2 dii baan ku xirayaa okay inta markaad samaysid halkanaad imaanaysaa marka ugu horeysa sida ka muuqata waxaad qoraysaa selector-ka ugu horeysiinaysaa selector-ku waa waa tag aad rabtid inaad wax ka bedeshid matalan fartiisa bedeshid ama colorkiisa colorkeeda aad bedeshid taggan doonana waa maxay waa h2 Soomaaliya ku dhex jirta Soomaaliyaas rabnaa inaynu fartiiskeeda waaweyneyno matalan farta colorkeedana aan green ka dhigno marka selector-ka ama tagga ay ku dhex jirtaa waa h2 Soomaa h2 waa soo qaadanaysaa halkan aad tegaysaa waxaad leedahay h2 waa selector Soomaa then maxaad dhahaysaa waxaad furaysaa bracket markasta waxaa ku xukuma waxa loo yaqaano saint-gaagan ayaa ku xukuma sumaarti bracket baa la furo dabeetana maxaad u yeelaysaa property baad u gelaysaa property-gaas ama color ha noqdo ama font size ha noqdo wuxuu doona haado color baynu ka dhiganaa halka color baynu leenahay dabeetana waxaan dhahnaa laba column baynu dhahnaa markaas ayaa xashiigaysaa colorka rabtina ka dhigtid green baan dhahnaa green nooga dhig baan dhahnaa semicolon baa dhahaysaa mar labaad waxaa dhahaysaa font size haddana column baad dhahaysaa font size inta ka dhiganaysaa 40 pixel baan ka dhigtay control s baan dhahayaa waan save gareynayaa desktop-kigaas ku save gareynayaa waxaan leeyahay test.html okay anti soo dejiyo kana soo dejiyo waa kan click do okay soo martid farti muxuu ka dhigay green buu ka dhigay farti green buu ka dhigay aan ku noqdo sidoo kale waxaad bedeli kartaa burigan oo kale burigaas waxaad bedeli kartaa colorkiisa burigu waa intee burigu waa browser-keena oo dhan waa intan oo dhan shaashada inta inoo muuqato oo dhan waa buriga marka browser-ka burigiisa oo dhan ama web-ka burigiisa oo dhan ayaad bedeli kartaa marka buri waa markaa selector noo noqonaya maanta burigu waa kan kaas weeye
buriga lagu dhex qoro wax kasta website-ka kamid buri baad leedahay qoraysaa markaas ka qoraysaa background marka waxaad raacinaysaa matalan background-ku waxaad ka dhigtaa green iga dhig baad leedahay sorry green farta ahayd waxaad iga leedahay yellow iga dhig control s baad leedahay haddana imanaysaa refresh badaas soo ma jeedid background-ka oo dhan ayaa bedeshay marka CSS kana saasaa loo qoraa caawa notepad baan isticmaalanaa haddii lahayd mood laakiin casharada dambe waxaan isticmaali doonaa sublime textigeeni ama editordeeni kale ee nagu hor isticmaali jirnay HTML ku samayn jirnay caawa wuxuu ahaa introduction ama overview hore oo aynu ka qaadano CSS-ka inta ayuu caawa cashirkan ku egyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin fal channelka subscribe saara videogana like saara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.